wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle xildhibaan Cismaan Cabdullaahi Dhoore ayaa waxa uu kormeeray afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle xaafadahaas oo saameyn uu ku yeeshay roobabkii guga ee dhawaan ka da'ay magaalada Jowhar dadka ka dhashay roobabkii guga ee ka da'ay magaalada Jowhar ayaa waxa ay sababeen in ay barakacaan qoysas danyar ah oo ku noolaa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar gudoomiyaha xaafadda Horseed Cabdi Xaamud Xasan iyo gudoomiyaha xaafadda Bulasheekh Cabdi Bariise Maxamed ayaa waxa ay wasiirka uga warbixiyeen saameynta ka dhashay daadadka roobabkii guga ee ka da'ay magaalada Jowhar. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alaykum markuu waxaan ku salaamay islaamka markuu waxaan mahad celinaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahad celinayaa wasiirka xageenka musiibooyinka iyo gargaarka oo nagu soo booqday xaafad kamid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jowhar xaafad kamid ah oo la yiraahdo Horseed asagoo u kuurgalayo dhibaatooyinka iyo maaragtay dhibka biyaha roobaadka ay u geysteen dadka iyo fatahaadaha asagoo u kuurgalayo oo qubiha bulshada yani dhibaatada ay qabto iyo hawsha meesha laga haayo asagoo u socdo meesha ugu yimid oo mahad celinayna iyo wariyaasha dhamaan iyada baaqad qobxay waxaan ugu jeedinayaa inay si xaafadda Bulasheekh si degdeg ah inay gacan adag uga geystaan aan gaarsiiyaha hay'adaha oo ku nool Shabeellaha Dhexe ama soo degay ee imaahayo dad waxa jira in loo yimaado boog in naga buuxsado iska tagaya waa jiraan laakiin qoftu waxa la rabaa inay hay'ad markay imaahays naftigeeda ugu sawir inayna naqanino si sax ah oo Ilaahay dartiisa inay taga wax ugu qabtaan la rabaa. ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle xildhibaan Cismaan Cabdullaahi Dhoore ayaa waxa uu baaq u diray bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar inay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa daadadka ka dhashay roobabka iyo cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle waxa uu baaq u diray hay'adaha gargaarka bixiya iyo dawladda Soomaaliya inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe. tagnay afarta xaafadood magaalada Jowhar oo ay qaarkood daadadkii iyo fatahaadii biyuhu webiyagu ay waxyeeleen iyo roobabka waxaan leenahay marka hadda siyaabihii roobku maalmahan wax badan ayaa laga qabtay meelaha qaarna wax ka qabasho badan ay u sii baahan yihiin laakiin waa saasoo loola sii dhawaado waxaan leeyahay marka aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaa madaxda iga sarreysa oo soo booqatay oo carradaan timid oo marka annagu aan mid ka bacdina timid haddana aan rajaynaya inay mar labaad ku soo noqon doonaan waxay aad dadku ula daalaadhacayaan fatahaadihii iyo cabsi laga qabo xanuunkii koroonaha oo iskaalmaystay marka waxaan leeyahay dadkuna ha isxakameeyeen si wada jirana ha loo wajaho arrintan oo fatahaadaha iyo daadadka oo labada gobol dhammaantood waxaan leeyahay iska halays qabsada gacmaha si wada jirana ha looga hortago arrintan oo hal la wada qabto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mahad Axmed Calasow TV-ga caalamiga Horyaal magaalada Jowhar.